dhawaan shir lagu qabtay magaalada Cadan ee UNHCR ay ku sheegtay in dadka qaxootiga iska mid ka yihiin taariikhda soo galitaanku ayadoo waliba qof kasta oo qaxooti oo halkan ku nool laga reebayo taariikhda uu soo galay taas oo ka dhigaysa in isku mid yihiin dhammaan qaxootiga waqtiga hore soo galay dalkan iyo waliba kuwa dhawaan soo galay telefishinka caalamiga Universal ayaa waxa uu booqday xarada qaxootiga alkharaz waxaana la hadlay qaar ka mid ah dadka qaxootiga ku nool xaradaasi ugu horeen Cabdiqaadir Shaash waa gudoomiyaha xarada qaxootiga alkharaz waxa uu ka warramayaa sida ay u arkaan ayaga ka gudyahan arrinkan anigoo ku hadlayo magaca qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Yemen ee alkharaz qoomiye waxaan anahay intaasoo macnaha qoomiye ah oo ka kooban intaasoo tiro aan soo koobi karin waxaa jirto Soomaali Oromo waxaan maanta macnaha halkaan ay macnaha niga sheekeenaya niga cadeynaya dhinaca bitaaqada xageeda waxa ka mid ah in bitaaqada macnaha qoomiyadan aan halkaan ku joogno ay joogaan 27 sano annaga ma diidanay bitaaqada ma diidanay laakiin mar hore waxa macnaha jiri jirtay UNHCR ayaa annaga macnaha naga mas'uul ah macnaha shaarta UNHCR iyo bitaaqada iyo shaarta dawladda ayaa macnaha bitaaqada ku waasi jirnay waana laga bedelay qaas ahaan waxaana la siiyay mid ka mid ah dawladda kaligeed ku saabsan tahay magacayga waxa la yiraahdaa Xaliim Cabdi Weheliye waxa soo galay xerada qaxootiga 92 ilma ama wadana soo galay maantana waxaan heeyanahay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaana lagu qasbayna la sii rabaa bitaaqo aysan ku qorayn duqulkeena ilmaheeni ku shayban oo la xaqirayo xuquuqdeena oo dhan waqtigaas soo galnay haddana waxaan leeyihiin qaata waxaad qaadanaysaan bitaaqadaas oo duqul lahayn wax taariikh aan lahayn inaan shala soo galnay aan laga dhigayaa bitaaqadii ilmaheeni ilmo ku dhalay qaxootiga waa ku ciraysanay anoo yaraan soo galay oo gabar yar ah haddana waxaan dhalay 10 ilmo ku dhalay qaxootiga mana dhici karto adduunku waxaan u sheegayaa arrintan in wax ka qabtaan waxaan hooyo Soomaaliyeed oo soo gashay iyadoo gabar yar ah dalka Yemen maantana alxamdulillah sida iga muuqata nin walba uu daalacan kara cimrigayga inta aan jira adigu ilaa 27 sanadood baan ku soo ceeshinay dalka Yemen maanta waxaan u baahanahay in maaragtay ahmiyad gaar ah la siiyo hadda oo la leeyahay wadankii meeshii yacni aan ku noolayn bitaaqooyinkeenii hore waxay ahayn ilaa iyo qof walba intuu joogay baa loogu qorayay maanta waxaan leeyahay bitaaqo inaad tahay qofna iyo areebal ah ayaa lagu siinaya taasna waxaan qaadan karna ma aha yacni bitaaqada ma diidanin oo waa ku joogi dalka kama soo horjeedna laakiin waxaan jecelnahay in bitaaqadii naloogu qoro cimrigeeni iyo waqtigii inta aanu joognin dalka Yemen qaxootigan Soomaalida ee ku jira xaradan qaxootiga alkharaz ee dalka Yemen ayaa doodo badan ka qaba sharciga qaxootiga oo la sheegay in dib loo cusboonaysiinayo ayadoo la sheegay waliba taariikhda uu soo galo qof kasta laga reebayaa taas oo ka dhigaysa dhammaan qaxootiga ku nool xaradan inay yihiin dad cusub Axmed Karanto telefishinka caalamiga Universal xarada qaxootiga alkharaz Yemen